fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Nimcaan Hilaac ayaa laga joojiyay show uu ku qaban lahaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee uu dhawaan gaaray inkastoo aysan maamulka magaalada Boosaaso soo bandhigin sababta ay showga fanaanka qaban lahaa u joojiyeen ayaa waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Puntland Cabdirasaaq Cumar Ismaaciil. wasiirka ayaa sheegay in uu ka xun yahay in fanaanka laga joojiyo bandhig faneedka waxaana uu dalbaday in tallaabadaas ay maamulka degmada Boosaaso jawaab ka bixiyaan. Fanaanka Nimcaan Hilaac iyo DJ Subeer ayaa muuqaal goordhow soo dhigay bogga Facebooka uga hadlay joojinta lagu sameeyay showgooda ku qaban lahaayeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Bismillahirrahmanirrahiim. aad buu salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan gaar ahaan taageerayaasha reer Boosaaso aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa soo dhaweyntii qiimaha lahayd ee noo sameyseen balse waxaan hadda idin sheegnay oo idin socodsiinay in showgii la kansalay oo uu kansalay isla shakhsigii la soo casuumay oo ah gudoomiyaha degmada Suweer. وتواصل مع شيء هذا بين المهندسين سودو وينتا الشعب كره بوصاصي اصحابتي السودو نيكي نسوع سمينا دي شو هو كانسل كره وانا مايركا رير بوصاص اما ديدان سياسيين هلو سمر اما دان دينيد هلو سمر لكن حنيو شو انه مسوع انه مانتا marka hada wasaasan sheegay yani shalay aswantu noo fidiyay tamaantii ku adkaystay waa aad iyo aad wata shacabka reer Boosaaso aad baa maasantay shacabka reer Boosaaso waxa weeyaan oo jeclayna wada caawino in caawo si fiican oo isa dhacday oo iska taalignayna anaga xaqiiqa ahaan kaliya la banaysa. haddaba daawade sidee u aragtaa in fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac laga joojiyo bandhig faneed uu ku qaban lahaa magaalada Boosaaso? fikirkaaga noogu reeb qaybta hoose ee commentiga.